golaha wasiirada iyo maamulka degmada Garowe wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan culummada samafalayaasha iyo kooxda isxilqaamayaasha ah ee runtii gargaarkii ugu horreeyay ee Puntland ka tagay geeyay dhammaantiinba waa salaamintina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqda waxa weeye waa waajib dawlad iyo shacabba saaran qayb naga mid ah haddii masiibo ku dhacdo in loo gurmado waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryeynaa dadka dhibaatadu dhacday iyo dadka kaleeta ee beledweyne ahayn ee dhibaatooyin gaar inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado markay dhibaatadan dhacday dawladda iyadoo shacabkeeda la hadlaysa waxa ay ugu baaqday in loo istaago gargaar in lala gaaro dadka walaalaha ah waxaan ilaahay mahadiisa inay u kaceen dhalinyaradii iyo culummadii iyo waxgaradkii iyo dhammaan iyo dawladdii oo isku dubaridaysay qaybna ka qaadatay dhaqaalaha maanta halka maraya runtii waxaan farxad noo ah culummada iyadoo hogaaminaysay bulshada sida habsamida leh ee loo agaasimay hawshaan tan iyo maalintay bilaabatay aan loo kala harsan maanta waxa ay maraysaa wejigii saddexaad ee Puntland ka baxaya wejiyo dambena way ay dhiman yihiin Garowe ugu horeysay gaalkacaya laga baxay maanta halka Boosaasay xoogooda ka yimaadeen magaalooyin kaleetana sida aan warku ku hayo oo isxilqaamayaashu hawlka wadaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idin dhawaan soo gaari doonaan intaasba waxay muujinaysaa inuu qof walba waajibkiisa saarnaa uu gutay si gaar ah uga mahadcelinayaa culummada oo runtii lafdhabar u ahaa mar walba oo masiibo ama Puntland ku dhacdo meel kale ku dhacdo siday gacan uga geysan lahaayeen xubnaha ugu firfircoon culummada marka laga soo tagana waa dhalinyarada runtii isxilqaamayaasha iyagana dowr aan la soo koobi karin ee qaatay weliba waxaan u mahadcelinayaa guddiga ugu horreeyay ee dhalinyaradu iska direen ee gaaray magaalada beledweyne oo runtii uu xabiib iyo gabdhihii la socday wiilashii la socday oo dhanba ay halkaas muddadii ay joogeen ay si degdega u noqdeen dadkii ugu horreeyay oo ka qayb qaatay waxaan rajaynayaa alaabtan inay si nabad ku tagto waxaan rajaynayaa wafdiga dawladda iyo ka socda culummada iyo inay ka daba tegi doonaan habkii wanaagsanaa ee tii hore loo qaybay iyadana inay loo qaybin doono waa muujinaynaa kaalinta nagu aadan dad badan baa u soo gurmaday oo Soomaali iyo dalalba isugu jira kulligood waxaan u rajaynaynaa inay cawad khayr qaba ay dadkaas u noqdaan maadaama aan ognahay magaalada beledweyne oo dhan inay biyaha ay wada simeen oo wax walba oo hantiya oo la haysta mid gaara iyo mid caama iyo mid ganacsi intaba ay halkaa ku baaba'een waan rajaynaynaa inay tani ka noqon doonto qayb ka mid ah cawad celinta waana rajaynayaa iyada oo maamulka Hirshabeelle dawladda dhexe iyo dhammaan cid kasta oo jecel wanaagga in beledweyne gurmadku uu soo noqon cunto kaliya aafadan soo noqonaysa in xal waara loo helo oo runtii si dhab ah dhibaatada inta meesha ka imaanayso loo xiro waa webi mar walba marna waa uu yaraadaa marna waa uu soo bataa laakiin sida dabiiciga ah way adag tahay webiyada adduunka oo dhan fatahaadda noocaan webiyadu markay karkooda gaaraan waxaa loo helaa xal iyo meelo ay biyaha ay u leexdaan marka waan rajaynayaa iyadana inay taas oo kaleeto ay mar damba nagu dhicin inkastoo tabarta ay yartahay laakiin haddii la isugu tago waan la maarayn karaa sida aan rajaynaya haddii ilaahna aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin inta ka soo qayb gashay iyo inta ka soo shaqaysay waxaan inoo rajaynayaa haddii ilaahay intaas inay noqoto tusaale fiican oo dadkeenna mar walba lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan samafalka iyo isku gargaar falka haddii ilaahay waad mahadsantihiin